Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhalinyaro, dhammaan dhalinyarta ee ku xiran YouTube-ka iyo weliba dhanka WhatsApp-ka labada dhanba igala socda. Waxaan la socodsiinayaa update ay samaysay shirkadda OpenAI, gaar ahaan platformkeedii ahaa ChatGPT. Update-ka ay samaysay waxaa ku jirta in dadka jooga Soomaaliya ama waddankeena Soomaaliya in aynu isticmaali karayno hadda ChatGPT inagu aan adeegsan wax VPN aan wax lacagna aan laga qaadin. Macnaha lambarkeennii ama lambarkii Soomaaliya hadda waa active oo aad ku samaysan karaysaa ChatGPT lambarkaaga si toos ah adigoon cid kale aan u sii daba fadhiisan inaad samaysato ChatGPT. Markii hore siin ogeyn ChatGPT waxaan ku heli jirnay lacag ama waxaan samayn jirnay platformyo kale isticmaali jirnay VPN bay isticmaali jirnay. Hawlo badan bay naga geli jiray si aynu isticmaalno ChatGPT. ChatGPT haddii aadan hore u isticmaal ama hore aanad u aqoon ama hore aanad u garanayn, waa AI kuu fududaynaya inaad wax ku qori karto ama aad wax ku ama aad ku samayn karto coding ama application aad ku dhisi karto ama website aad ku dhisi karto oo AI ah oo hadda caan ah oo dadku wada yaqaanaan. Kuwa muuqaalo hore ayaan ka sameeyay oo ChatGPT ku saabsan ilaa iyo 2 muuqaal baan ka sameeyay markii uu soo baxay. Marka ChatGPT haddii aadan hore u aqoonin muuqaalada hore ayaa daawan doontaa insha Allah. Haddii kale tan waxa weeyaan ChatGPT si kooban haddaan kuugu sheego intii aan aqoon, waa shirkad AI ah ama artificial intelligence oo ku siinaysa oo aad kaga faa'iideysan karayso habab aad u badan. Hal face oo keliya ma laha, inta ugu badan dadku wax bay ku qoraan laakiin wax ku qoris keliya ta maaha. Sidoo kale coding baa lagu diyaariyaa, sidoo kale waxaa lagu diyaariyaa website-yo dhisaynkoodii. Sidoo kale wuxuu kuu sheegayaa waxyaalo badan oo xagga aqoonta ama tiknoolajiyadda waxbarashada oo kale la xiriira. Marka aad buu muhiim ugu yahay ardayda iyo dhammaan dadka oo inta isticmaasho social media oo dhan. Marka application-kaasi hadda marka hore Soomaaliya available ma ahayn siin ogeyn, hadda laakiin available ayuu noqday oo waxaad ku tijaabin doontaa lambarkaaga Soomaaliya. Marka lambarkaaga Soomaaliya hadda dad ku diiwaan geliso si toos ayuu kugu shaqayn doonaa. Marka hal akoon oo degdeg ah ayaan samayn doonaa insha Allah. Si fiican ila soco. Waxaad timaadaa Google-ka kabacdina waxaad ku qortaa halkaasi ChatGPT ayaad ku qoraysaa halkaasi sare. ChatGPT ayaad ku soo qori doontaa insha Allah. Kabacdi waa tana waa kan shirkadda OpenAI baa iska leh ChatGPT oo waa AI iyada u gaar ah. Okay, waxaad ku dhufanaysaa ChatGPT-gaasi kabacdi waxaad ku soo bixi doontaa shaashadda login-ka iyo sign up-ka. Okay, waxaa ku soo baxaysa marka shaashaddan ku soo baxaysa oo isdiiwaangelintiya iyo login-ka caadiga. Marka hadda waxaan ku dhufanaa sign up maadaama aynu eegano sida akoonka cusub loo samaysan karayo. Marka waxaad ku dhufataa sign up ku dhufo. Hadda wax VPN ma isticmaalay xagga sare wada aragta moolka, wax VPN ma afurin mana isticmaalay. Marka ugu horreyn halka waxaad gelin doontaa email-kaaga ama email-ka ku gaarka ah aad leedahay. Okay, kabacdina waxaad tiraahdaa continue. kabacdi meesha ka hooseysa waxaad gelisaa password-kaaga geli oo password adag iska samayso markaasi oo ilaa iyo 8 xaraf ka kooban. U sameeyay wuu saxsan yahay buu yiri ugu yaraan waxaad samaysaa 12 character baad ka dhigaysaa. Marka 12 kuwa gaarsiiyay password iska adag weeye. Kadib waxaad ku dhufanaysaa continue. Okay, kadib wuxuu ku oran doonaa soo verify garee oo email-kaaga soo verify garee. Marka waxaad sameynaa email-kaad isticmaalaysaa kugu jira mobilkaaga oo si toos ah ugu soo laaban doontaa. Marka waxaad arki doontaa inbox ama message lagu soo diray oo lagu soo diray dhanka email-kaaga. Okay, sana u soo baxaya marka message lagu soo diraya kabacdina waxaad ku dhufanaysaa verify email address meeshaas aad ku dhufanaysaa. Haddii aadan browser-kaaga default-gaana doonin inuu ku soo kaco halkan aad xajin kabacdina waxaad copy kadibna browser-ka doonaysid ama kaad isticmaalaysid ayaad u tagi doontaa. Marka hadda waxaan isticmaalayaa isla kan uu geyn doono oo default ah. Okay, markii xigta wuxuu qoran doonaa waxaad gelisaa magacaaga koowaad iyo kaaga dambe. Marka magacaaga koowaad iyo magacaaga dambe iska gasho ama wax ku tijaababa iska gasho. Ana hadda ku tijaabaa maadaama yahay ku tijaabaa ayaan iska gashanayaa. Kabacdi meesha waa optional waxba ma taaban doontiin. Halkan dhalashada ayaad gelin doontaa. Bisha iyo date-ka ayaad gelin doontaa insha Allah. Bisha ka 12 baan ka dhigay 1990 haddaan ka dhigo marka waa iska tijaabo.
marka hadda meeshii aan la dhaafi kari jirin ee aadka u adkayd meeshan ay ahayd oo lambarka Soomaaliya lama ogolan waqtigaasi hore. Hadda laakiin wuu ku soo daray tijaabada halkan ayaynu ku arki doonaa markaasi. Marka waliba lambarkaasi waa inaad adigu gacantaada ku haystaa si message-ka lagugu soo diri karo. Hadda wuxuu soo qoray markaasi verify that you are human. Marka wuxuu ku leeyahay waxaad caddaysaa inaad tahay bini'aadan. Marka robot inaad tahay iska ka ilaalinaya. Marka halkan ayaad ku dhufanaysaa begin puzzle baad ku dhufan doontaa. Marka meeshani inta badan way kala duwan tahay. Hadda wuxuu soo dirayaa waxana ayuu leeyahay ka shaqee si loo dhaafo puzzle-kan si loo gudbo. Sometimes halkan wuxuu ku soo horeysiyaa tirada hadduu tiro soo horeysiyo iyo shay tiro lagu dhuftay waxaad eegi doontaa tiradaas mar walba hadduu 4 times sawir buu soo saari doonaa. Hadduu 4 times sawirkaas soo saaro xaggan waxaad ka doorataa adigoo meelahan dhinacyada ka dhaadhaafinaya 4 times sawirada uu ku soo diray 4 midh markay noqdaan oo isku eegaya ayaad halkan dooran doontaa kabacdina aad continue oran doontaa. Haddii kale jihadaas aad kusii dhufan doontaa. Marka qaar wuxuu oran karaa 1 times shimbir yar buu ku sawiri karaa. Marka hadduu taas kale ku sawiro waxaad tidhaahdaa hal shimbir baad ka eegi doontaa halkan oo waxa kale ee ku jira ayna laakiin wax shimbir ah ahayn. Way se u kala duwan yihiin macnaha. Mararka qaar baalkaas in la yar fahmo adkaataa laakiin waa iska fududahay. Marka WhatsApp-ka igala soo xiriiri doontaa insha Allah haddii kugu adkaato. Kabacdi hadda wuxuu yiri fallaadho dhinaca ujeedo buu yiri bakaylahan yar. Marka waan u jeedinayaa dhinaca fallaadho ujeedo saas u sax ku yahay marka. Hadda dhinaca mar walba dhinaca labada farood u jeedaan ayaad u jeedinaysaa shayga yar xayawaanka halka lagu soo dhigo. Kabacdi hadda faraha iskor buu u jeedaan kolka kan waa inuu kor u jeediyaa. Si toos ah directly uma jeedo. Si sax ah saas u jeedaa mar walba adeegaysa kolka dhinaca ugu jeedo. Kabacdi waxaan odhanaysaa submit. Nooca caddaynaysa inuu available yahay. Wakaasa wuxuu igu yiri soo geli 6 number ayaan kuugu diray sim card-kaaga. Mar walba inaad haystaa mobilka ama sim card-kaaga waa haystaa. Hadda message wuu soo dirayaa oo xagga sare. Wakaasa message waa soo diray. Wuxuu soo qoray 357127 intaas way soo qoray. Marka hadda si toos ah ayuu ii keeni doonaa ChatGPT. Okay, marka ugu horeysa waxa laga yaabaa inuu waxaan kuu soo dhigo oo tutorial-ka iyo raac buu qoranayaa tusaalayaal macnaha hadaadan garanayn sida loo isticmaalo ayuu ku oranayaa waxaan raac. Okay, markuu meesha ku keeno waxaad samayn doontaa xagga sare tag kabacdina si toos ah ChatGPT mar kale u soo qor si aad login toos ah ugu soo gashid. Marka hadda ayaan login-ka caadiga ah ku soo galanaa. Hadda login baan ku soo dhufanaya markaasi. Waa inuu marka account-kayga si toos ah u galaa. Okay, marka password-kaaga iyo email-kaaga soo geliso kabacdi waxaad tidhaahdaa continue. Okay, marka sidaas inoo keenay shaashadii ChatGPT ee la isticmaalayay. Intii hore u aragtay intii kalena muuqaalada aan ka sameeyay loo isticmaalo ayaa daawan doontaa insha Allah. Marka wax walba u baahan tahay ChatGPT aad ugu baahan tahay meeshan ayaa lagu qoraa. Haddaad arday tahay iyo haddii aad wax kale aad isticmaashidba halkaas baa wixii la rabo lagu qoraa. Marka anything halkaas aad ku qoraysaa aad u baahan tahay xataa haddaad code u baahan tahay aan ku dhahdo waxaad qortaa write HTML code haddaan ku dhahdo dadka inta badan isticmaala programming waxaas uu fiican yahay. For login haddaan idhaahdo wuxuu siin doonaa HTML ku saabsan xagga login-ka ama website marka la soo galo login iyo wuxuu leeyahay sign up. Marka sign up-ka iyo login-ka sameynteedu kaasa hadda waxaad arkaysaa inuu ii sameynayo HTML. Marka waxa fahmaya inta badan oo kan isticmaala ama HTML-ka isticmaala dadka programming-ka. Marka kan ayaad koobiyeysaa meesha aad rabtay ayaad gelinaysaa login-ka u sameynaysaa. Kaas waa mid ka mid ah phases-ka loo isticmaalo. Sometimes inta ugu badan laakiin anagu waxaan u isticmaalnaa articles-ka toosan ayaan soo qornaa write an article about Somali culture haddaan idhaahdo qor article ku saabsan Somali culture oo kaleeto xaggan ayuu ka soo saari doonaa maqaal ku saabsan Somali culture. Marka isaga ku qoray wakaasa cilmiga oo dhan waa uu ku kooban yahay meesha. Tusaale haddaan ku qoro af Somali haddaan ku qoro haddaan af Somali ku qoro waa maxay luqad oo kale dadka wax baranayaan aad ugu fiican yahay. Tusaale waxaan weydiiyay waa maxay luqad marka in af Somali waxaan igu qorayaan doonaya. Okay, wakaasa waa qoray. Okay, marka luqadda luqad buu ii sharaxaya iyadoo af Somali ii sharaxaya wali. Wadarka af Somali buu ku qoray
wax kasta loo baahan tahay dad baahan tahay dad ku tiraahdo Soomaali waxa igu qor Soomaali wuu kugu qoraya marka isticmaalkiisu sida iyo waliba si ka badan ba loo isticmaalaa oo insha Allah isaga muuqaal ka samayn doono laakiin waxaan idin waday update-kaasi ahaa in Soomaaliya markaad joogto aad isticmaali karto ChatGPT aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh